السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشينا كتحان برتنا يوتيوب كا واندين سلام يا سلام كدب برتنا يوتيوب كا كينان كان لوشا حدادا صاحب لأهين waxaan kuu rajeynaynaa in aad ku soo biirto dadka subscribe-ka horay u saaray haddaba maanta waa uu ka duwan yahay warbixinada aan horay idinkugu soo gudbin jirnay sida aad la socotaan Soomaaliya meelo ka mid ah waxaa si weyn looga xiiseeyaa filim musalsal ah oo la yiraahdo amaba ay atrishiya tolo ay ka yihiin Miran iyo Rayaan filimkaasi oo wadanka Turkiga lagu sameeyay afka Carabigana lagu turjumay lana yiraahdo Zarat Thulutha haddaba dad badan oo xalqooyin si fiican ula socday ayaa naga soo dalbaday in xalqadan ku saabsan Miran iyo Rayaan oo meel fiican maraysa in aan u soo turjunno sida aad la socoteen Miran waa qof isagu lagu beeray cuqdad iyo in laga dhaadhiciyay qoyska kale ee gabadha uu jecel yahay in ay hooyadii hore ay u dileen haddaba xalqadan xiisaha badan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa Rayaan aabaheedii oo dhaawaca iyo sidoo kale waxyaabihii kala qabsaday isaga iyo sidoo kale Rayaan iyo mowqifkii qoysasku ay kala istaageen haddaba sidaan ayay ku bilaaban doontaa xalqada sida aad maqlaysaan waa gaari ambalaas ah waxaana saaran Hazad Shahid Oglo oo ah aabaha dhalay Rayaan oo isaga oo dhaawac ah oo ay ku xiran yihiin waxyaabaha oxygen-ta ee lagula tacaalo dadka dhaawaca Rayaan ayaa la arkayaa iyada oo aad u murugsan waxa la hadlaysa gabar ka mid ah dhaqaatiirta waxa uu leeyahay warqad waxa uu ka dardaarmayaa warqad warqadii ayuu leeyahay waxaa hoos u sii dhacaya garaaca wadnihiisa Rayaan ayaa la arkayaa maxaa dhacaya ayay leedahay hayga tagin aabo ayay leedahay hayga tagin ayay leedahay dhaqaatiirta ayaa xaaladiisa la tacaalaysa oo cirbid duraysa hayga dhiman ayay leedahay waxa qaybtan waa Furaad iyo Rayaan waa Miran wuxuu leeyahay Hazad Shahid Oglo saan inuu ku dhinto ma ahan waa hadduu dhinto wuxuu noqonayaa geesi ku weyn qalbiga Rayaan Furaada la hadlaya haddii uu ninkan dhinto waxa uu ku guuleystay oo leeyahay intiqaamkii ama argoosiga u socotay sidan inuu ku dhinto mar raba ayuu leeyahay isaga marka dhinaca iyo isbitaalka ay ku sii jeedaan wali waxa la soo wadaa dhaawacii Hazad waxa la yimid isbitaalkii waxaan nagala socotaa page-keena channel-ka keenaanka nolosha fadlan subscribe sar waa la soo dejiyay dhaawacii Hazad Shahid Oglo waxa hadlaysa Rayaan waxa leedahay aabo dul qaado dhaqaatiirta la hadlaysa hana loo daaweeyo leedahay aabahay qolkii saalada ayaa loo wadaa waxaa yimid isbitaalkii ninka la yiraahdo Miran waxaa loo diiday qolka inay gasho waxay ka dalbanaysaa in loo daaweeyo aabaheed Rayaan iyo Miran oo sheekay dhaxmarayso iyadoo waxaan dhan adiga ka dambeeyay dishay isaga waxa uu leeyahay maya aniga kama dambeeyay aniga ma dilin kuma ilaabi doona ay leedahay waxaan dhan adaa ka dambeysay argos iyo nacab ay u sameysay waxa doonaysaa aabahayga inuu geeriyoodo inuu noloshaada ka baxayo doonaysaa si ay u dishay leedahay
rayaan waxa uu leeyahay miraan waxaan aniga kama dambeeyo. rayaan waxay leedahay tan iyo marka nolosha ku soo biirnaba dhib ayaa nagu haysay, waa dulminaysaa ayuu leeyahay. wax aan ka ogaay ma lahan, aabahe beri ayuu ahay ayay leedahay. waxay leedahay waa kana dhimasho ayuu la tacaalay, inuu dhinto ayuu u dhow yahay. ween oo kala dhamaatay ayay tiri. miraan gacanta ayuu ka qabtay isagoo le waxaase sameynin, waxaan dhan adinka ayaa ka dambeeya ayay leedahay. weli waxaa la joogaa cisbitaalkii, dhaqaatiirtii ayaa saaladii ka soo baxay iyagoo soo bixiyay sariirtii dhaawacii Hazaal lagu keenay. Hazaal oo murugsan ayaa la istusayaa. waxaa xusuusin mudan daawadayaasheena nala socda in xalqadan maanta laga baahiyay waddanka Turkiga. qolkii saalada ayaa la soo aadayay, Hazaal ayaa la arkayaa isaga oo xaaladiisa lala tacaalayo, oksijiintana lagu xirayo. dhaqaatiirta ayaa dhinacba dhinac kale ka eegaya iyagoo indhihiisii iyo jirkiisii kala baaritaan ku sameynaya. lama oga wax ku dhacay Hazaal ilaa iyo hadda. waxaa laga jeexayaa shaati cad uu xiran yahay, kaa oo ay dhaqaatiirtu ay damacsan yihiin in ay baaritaan ay ku sameeyaan. weli waxaad naga daawanaysaan janaalkeena keenaanka nolosha. fadlan haddaad nagu soo biirtay, subscribe saar, like iyo sharena ku qabo pagekeena janaalkeena, annagoo idin soo gudbin doona xalqooyin filimkani qayb ka ah oo ay Soomaalida si weyn ay ugu taxan yihiin. weli dhaqaatiirtii ayaa dhaawacii Hazaal la tacaalaya. dhaqaatiirtii ayaa hadlaya iyagoo dhahaya dhiigiisii waa hooseeya. gurigii oo Miraana lagu soo laabtay. maama Asma oo isla hadlaysa waxay leedahay waxaan inaan sameeyo ma ahayn, inaan u sheegana ma ahayn, waxaan dhan sababteed ayay ku dhacayaan. Ganool ayaa la susayaa gabadha ilmaadeerada ay yihiin Miraan. guriga dhan buuq iyo sawaxan ayaa ka taagan, dadka dhan taleefano ayay ku wada hadlayaan si xaaladda dhacday loo wada ogaado. cid ka qabanaysa malan taleefankan, hooyadeed ayay la hadlaysaa. maxay iga jawaabi laayiin ayay leedahay. Eliif ayaa la istusayaa iyadoo murugsan. Miraan iyo Furaad ba ka jawaabaysa malan taleefanka ayay leedahay. waa Ganool qof ka hadlaya. Suldaana la hadlaysa oo hooyadeed ah, isdij ayay leedahay. waxaa hadashay mid ka mid ah shaqaalaha guriga oo iyadu la qof inuu riday dhici karta. soo suurtagal maan ayay leedahay. waxaa la susayaa gurigii oo Nasuux. waa la kala orday. waxaa la soo sheegay warkii ku saabsanaa Hazaal. dib waxaa loogu soo laabtay cisbitaalkii.
waa Rayaan oo dhehaysa ka waran haddii aabe wax dhibaato ay ku dhacdo maxaan samayn doonaa. Rayaan ayaa weli hadlaysa oo Ilaahay u baryaysa aabaheed. Miraan u soo dhawaaday, iga fogow ayay dhahday, aragtidaada uma baahniye. Rayaan ha iska kay fogeen ayuu yidhi, haddaa rabta inaan baxo laakiin ficilkan qofka sameey aniga ma ihiyuu leeyahay. haddii aabbahe u dhintay ayay dhahday, anna waan la dhiman doonaa, hadduu baxo waa la bixi doonaa. mar walba wuxuu ii dhihi jiray iga daba imaaw, soo bax ayuu ii dhihi jiray, balse waa ka diidi jiray ayay tiri, anoo dhahayo waxaan jeclahay Miraan mana ka tegi karin. waxaan dhan sababteeda ayay ku dhaceen ayay leedahay. waan ku rumaysay ayay leedahay Miraan. isaga kuma rumaysan laakiin aniga waa ku rumaysay. waxaan ka dhaadhicay inuu rumayso jacaylkan isku qabno. hadduu sidan ku dhinto aniga ayaa sabab u ah ayay leedahay. Miraan madax ayuu luxayaa, waa badbaadin waa aabahe ayay leedahay, waan badbaadin way ku celcelinaysaa. Miraan oo murugaysanaa la susayaa. ducadeeda sii wadatay Rayaan. Miraan waxaa u yimid Furaad oo dhahaya nakeen aan iska baxno. waxay isweydiinaysaa waxa uu qasriga ka soo doonay aabaheedii ilaa subaxii ma sugaysa ayay leedahay. sababta maxay tahay? Miraan la susaamo fahmi kara ayuu leeyahay. hasaashaad oglo waxa uu qasriga bartamiyay habeenkii uu ka sameynayay, isaga ma soo dhacay mise waa la soo riday ayuu leeyahay, yaana ka dambeeya ayuu leeyahay. maxaase sababta maxay tahay? Furaada la hadlaya waxaan ku fikirin walaalkay ayuu yiri. Aziza la susaya waxay u yeertay ilaaliyaheedii Maxamuud iyadoo dhehaysa nakeen. waxay leedahay cid aan ku kalsoonahay ma lahan, adiga ma ahan, kaliya dadka wax og waa adiga. qofka warqadaha noo soo diray waa qof nagu ciyaaraya ayay tiri. hadda wixii ka bilaawda waa in dadka indhaha aad ku haysa ayay tiri, waa inaad sidaas u fahamtaa. meesha warqadan ay ka imaanayso waa in la ogaadaa. warqadahan inay yeeshaan meel loo tixraaco ayay tiri. waan fahmay ayuu yiri Marwo. waa hagaag daawadayaasheena kanaalkeena keenaanka nolosha, halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. waxaan idinka rajeynaynaa in aad subscribe aad pagekeena saartaan. waxaan idin ballan qaadaynaa xalqadan midda xigta insha Allah in aan idin soo gudbin doono. sidaa iyo nabadgelyo.